بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaashiina Sucaad Nuur. Videogan waxaa uga hadlaa maadaama sanadka aakhirkiisa la maro hadda sanadka kowdiisana ay tahay dadka waqtiyada ay dadka inoo xamaasado ku jirto oo ahdaaftooda samaysanayaan sanadku cusub oo abaayooyin ka mid ah ay soo weydiisay sidee jadwal u dhiganaa sidee qofka uu inoo oo ahdaaf iyo jadwal u dhigtaa. waxaan jeclaysan in idila sheer garayo 7 ilaa 8 qodob oo badan hadda ku kalifto mise sabab u noqoto inaynu u suurtagelin ayna natiijo ka gaarin ahdaaftooda. soo waa maxay 8kaas qodob oo badan dadka ka mashquuliso ahdaafkooda si aan iskaga ilaalino because waxyaabaha markaa baratid oo dadka ayno waxyaabaha wax ka hor istaagay goolkaaga markaa baratid indan waxay ku fududeynaa in aad ka fojoogsanaatid in gooshaadin insha Allah natiijo ka gaartid. ilaahay kulligeena ahdaafteena ha noo xaqiiqiyo. qodobka koowaad oo badan dadka ka cataliyo oo masaka dib uga dhigo inaynan gooshooda gaarin waxaa waaye in qofkii gooshiisa markuu gool dhiganayo bidaayadiiba uu gooshii waadax u ahayn waxaa rabaa in aan wax samaysto laakiin gooshiiba kuma cado xamaasada iyo waxaa ku hayo iyo feelings iyo emotions laakiin kuma cado exactly waxaa rabtid. gooshaada hadii ku cadeen waxay marka qofka u fududeynaya in qofkii leenka ka baxo oo gooshii natiijo ka gaarin ilaan koodii hore gooshkii tashwiish ku furan gooshkii blurry ah ma fahansano ma ogo completely qofkii ma fahansano goosha oo rabo inuu gaaro maadaama oonu fahansaneyn taas waxay u sababaysaa mise u fududeynaya in qofkii leenka ka baxo gooshiisa ka mashquulo distracted ka dhaqdo. iska ilaali marka inaad gooshaada aan fahansaneyn haddaa gooshaada rabtid inay kuu shaqeyso fahan waxa aad rabto isqiimee meesha hadda aad joogtid iyo meesha rabtid inaad tagtid waxyaabaha isbedelka aad rabtid inaad noloshaada ku dhisid markaasay marka ay kuu fududaan in gooshaadii targetka aad saartid oo diirada saartid oo ku shaqeysid oo natiijo ka keentid insha Allah. talabaad waxaa waaye qofkii inuu ta'jiil sameeyo oo wixii dib u dhigo bini'aadanka ta'jiil oo iska jecel wixii inuu dib u dhigitaanka waa caadooyinka bini'aadanka kamid ah. soo qofkii waxaa waaye because wuxuu isleeyahay naftiisa hadda ma samayn kartid samarkaa sameynee sanadkada markuu bilaadaa sameynee mise hadda baby yaraa joogo waxaa laga yaabaa inay dhahdo cunug yaraa haysaa ilmaha horta kuu koraan markaas ka bacdiyaa iskuul ku laabanee si waxyaabihii mase ta'jiil inay samayso qofka inuu bari dambe wixii waqti oo dib u dhigo asoo og inuu gooshaan u baahan yahay waxyaabo noloshiisa u baahan tahay haddana iska dhaadhacsiiyo ta'jiilkaas isticmaalo ta'jiilkiina marka ay qofkii maadaama wixii ajalina asoo waxaa laga yaabaa waara waxaan sameynaa laakiin hadda ma sameynay next month aan sameynaa in next month iyo next year la noqoto then the other year oo soo marka wixii leegii ka bax mar hore is arko. tal saddexaad waxaa waaye oo muhiim ah in laga digtoonaado waxaa waaye in qofkii kalsooni naftiisa ku qabin oo shaki naftiisa kaga jirto shaki qudraadkiisa kaga jirto oo aaminsaneen inuu sameyn karaba ma aaminsan qofka shakiya ku jiro wuxuu isleeyahay ma sameyn kartid adiga ma kama soo bixi kartid waxaan oo kale adiga laguguma talagalin adiga maskaxdaada saa uma shaqeynayso dadkaan way kaa maskax fudud yihiin dadkaan way kaa qofkii wuxuu iska dhaadhacsiinaa qofka kale ka maskax fudud yahay qofka kale wax sameyn kara laakiin asaa isla mid garaynayo fix mindset oo qabaa shakigaas u imaanayo shakiga marka oo maqla shaki qof bini'aadamka anaga dhanna shakiyaan qabnaa waa shay dabiici waa inaan fahanno si insha Allah iskaga ilaalino. qof walba wuxuu qabaa inner voice cod gudihiisa ku jiro oo sometimes ku imaanaya codkaas oo ku dhahayo inuu waxyaabo waswaas kugu furaayo oo shaki kaa gelinayo qudraadkaada shaki kaa gelinayo acmaashaada. soo ma la raba inaan sii dhageysano codkaas lama rabo codkaas hadaa sii dhageysatid uu kuu sii weynaanaa wixii iskugu kaa camirmaysaa waxaas leedahay alla ile waxaa maba samayn kartid waa mujeedido waxyaabahan mujeedido imtixaanka waa ku dhacday waxaan kuma fiicnid waxaa natiijo kama gaaraysid waqtigaa iskaga lumin mise waxaan adiga hadda diyaar uma tihid. soo codkaas markuu ku imaado ogaaw in codkaasi jiro markuu ku imaadan isku day waxyaabo kale aad ku bedeshid acknowledge garay laakiin la dagaalan codkii wax ku dhiirigelinayo wax kaa hasiiraha raacin codkii wax kaa bixinayo shakigaas inaa shaqada la imaatid inaa adiga focuskaaga soo attentionkaaga soo celisid marka ku caawinayo waxyaabihii ku dhiirigelinayo waxyaabo motivation kugu sameynayo wax haddaa fiirsadaysid haddii qof ku jagaraynayo waxyaabo la imaamo marka adiga isticmaashid waqtiga markuu codkaas kugu furmo ilaa codkaas uu ku imaanaa laga yaaba qof dadka isku mid maaha of course. tan kaleeto waxaa waa in qofkii marka oo iska dhaadhacsiiyo inuuna samayn karin because of meesha tan shakiyaan ahna mogta shaki qudraad wayd. tan kaleeto waxaa waa qofkii oo is-aaminsan waa is-aaminsanahay laakiin
ani African jooga mise wadan aniga wadankan joogo dadka dhan wadankan mise because meeshaan jooga sababteeda duruuftan dagaalkan whatever waxyaabo kale oo external waxyaabo outside-ka oo u isticmaala oo iskaga dhigaa mubarar oo iskaga dhigaa waxaas iskugu cadeeya aniga intaa madaan keenayba intaa haddaan aan sameeyey meesha dadka dhan saan le waayo kaasoo marka excusekaas qofka da excuse naftaada aad siisid excuseki aad believe garaynaya wax cudurdaarkaas aad iska dhaadhacsiisay as leedahay adig intaana noloshaada saan le waayo limited waa because environmentiga joogtid mise because duruufta markaas ku haysato daraadeeda haddii qofkii uu isxiro isagii bukas isku xiro lagama yaabo in gooshiisa oo sool ka gaaro mise oo bal xataa oo gool la imaado because wuxuu aaminsan yahay in oona ka bixi karin oo dariiqo kale oo lahayn oo wixii wax excuse-ka oo qabo oo excuse-ka isticmaala cudurdaarkii oo wuxuu ka dhigaa sababtaas oo markay ka bixiso leenka oo qofkii gooshiisa salka gaaray tagaleeto waxaa waa in qofkii oona la imaanin consistency waxaa la daa'im qofkii gool xamaasada hayso sanadka markuu bilaawdo gooshii oo bilaawa laakiin 2 beri 3 beri bil 2 bilood 3 bilood ka bacdi waxaa waa qofkii consistency ma sii wadaa wixii uu ka caajisaa meel oo faro ka qaada caajisaadaas consistency la'aanta qofkii oo daa'imaadaas la'aan qofku waxa waa inaad daa'imtid wax hadaan la daa'imin compound ma arkaysid waxyaabaha goosha samaynayo oo natiijo ka keenaa waxa waaye waxyaabo isgargaaray camal yoomi wax maalin walba la samaynayo oo isgargaaray second day third day compound isku naqanaysaa waxyaabihii 5 sano ka bacdi natiijada ka arkaysaa 1 sano ka bacdi natiijada ka arkaysaa wila wix iska gaari waa laakiin haddii wixii aad consistency baa lahayn adiga galaaska isku soo qortid oo galaaskii aad 2 beri markaa aad galaaskii aadan sii wadin galaaskii ilan ma dhamaana isku soo qortay dadaalkii waa samaysay niyadii waa haysay laakiin isma bushkaraynin iskuma qasbin consistency lama imaanin ma daa'imin wixii natiijo ma ka keenaysid sheekeen iska naqanay mise waxyaaba aad rabtay niyada ahayd oo camal la imaanin so maashan waxaa loo muhiim ah qaacidada inaad haysatid oo ah axabu alacmaali cinda allahi adwamuha wain qal acmaasha oo ilaahay ugu jecel yahay waxaa waa kuwa ugu daa'imsan xataa hadday yaraato taas waxayna tusinaysaa waxay hopefullyna gelinaysaa inaa ogaano muhiim ma ah quantity-ga yani muhiim ma aha in waxyaabo badan maalintii ku qabsamaan muhiim ma aha in waxyaabo badan maanta checklistiga ka baxaan laakiin waxaa muhiim ah inaa consistency haysatid oo waxyaabo maalin walba waxyaabo aad daa'imoosid depending on your priority waxay ku xiran tahay priority-ga waxyaabaha ku muhiimsan oo adiga koodii hore aad soo qeexday goosha markaan samaysanaysa ilaan wax maalin walba daa iska sameynaya maalin walba daa maanta dhan aad 3 saacadood alaab dhaqowsid oo guri hagaajinaysid laakiin naftaada ahmashay mise tarbiyadii ilmahaaga ahmashay wixii gooshi ku ahaa asaasu ku ahaa koodii hore aad dhigatay daa ihmaal ku samaysay aad la imaanin laakiin waxyaabo kale maalin walba aad daawamoosid oo wax natiijo ku keeninin taas waxaa lahaa waxyaabo aad isku mashquulsid distraction waayo waxyaabaha badan anaga nafteena isku mashquulin waxa laga yaabaa in qofka markuu ogyahay waxyaabo muhiim ah inay u taalo inay u fududaato inuu social media isku mashquuliyo mise inuu video ma la yani hadda marka bini aadamka waan agenda anaga naga weyn waay yes bini aadamka daciifa u yahay laakiin ogaa waxa waa system loogu talagalay in dadka lagu mashquuliyo oo laga faa'iideysto because hadda adiga goal lahayn oo gooshaada laga mashquuliyo qof kale ta gooshiisa ku jirta if we don't have our own goals you are part of somebody else's goal waay qof kale gooshiisa ku jirta waa dawlad kale gooshiisa ku jirta dadka taajiriinta gooshooda ku jirta ayagaa ku use gareynayo adiga waxaa tahay part of another dad kale gooshiisa ka mid tahay hadda adiga naftaada gool u haysan oo adiga aan horumar siinaynin qof kale gooshiisa adiga aad qayb ka tahay qofkaasaa gool wax kugu fulinaya gooshiisa kugu use gareynaya so in qof la use gareynayo aan naqatidna waxaa noo fududeyna inaan saas naqano social media iyo agenda maroo la soo darisay dadka la isticmaalayo marba wax lagu mashquulinayo zaman waxyaabo kale lagu mashquulin jiray macnaha yani aha mar dadka waxyaabo lagu mashquul hadda waxay noqotay in dadkii lagu mashquuliyo influencers iyo teenagerkii waxyaabo lagu mashquuliyo dadka waaweyn wax lagu mashquuliyo waxyaabahaas mashquulkaas badan hadda markaa videowaha aragtid oo YouTube ka xataa la soo dhigo videowaha maala yacni ugu view badan waxaa arkaysa intaas milyan inay dadka fiirsteen intaas thousands ay fiirsteen laakiin qofkii naftiisa ma siinaysa inuu fiirsado video faa'iido uga keenay because qofka ma rabo inuu naftiisa xisaabo mise naftiisa waxyaabaha comfortable-ka waxay ku tahay waxyaabaha maala yacniga
waxyaabihiin waa wax u baratay maskaxda u baratay waaye saas daraadeed waxaa noo fudud inaan distracted ku noqon waxyaaba maa laa yacni ama distracted ku noqon anigaan kula hadlaya idinka mid of course mar walba I try to inaan soo xasuusiyo taas aanan you know agenda dadka kaleeta aan u isticmaalin YouTube habyuu ku yahay in dadkaas maa laa yacniga ah video youtuberooda u kala kacaan dadka ka mashquuliyaan ahdaafdooda laakiin anaga aan yaana naqanin qof kale hadafkiisa yaana naqanin qofkaas hadafka samaysanayo oo youtube-ka samaysanayo waxaa soo dhiganayo hadaf oo leeyahay hadafkiisa ku shaqaysanaya hadafkiisa oo gaarayo adigana hadafkiisa u buuxinaysaa taadina waa iska hilmaantay mus waa ka mashquulsan tahay soo isweydii mar walba aa wax fiirsanaysid mar walba aa wax samaynaysid maxaa natiijo aan kala baxoya meeshan maxaa u fiirsanoya maala yacniga iyo in qofka naftiisa oo siiyo istiraaxa siiyo rawixu anfusakum alla in qofka naftiisa istiraaxa siiyo waa shay dabiici waa laakiin istiraaxada in nolosheena 90% ay noqoto maala yacni problemka ah so waxaa waaye sadid waqaarib in qofka iyo waxyaabo jadina la imaado waxyaabo oo naftiisa oo ugu raaxeeyo mise naftiisa oo oo break ku qaatan oo la imaado laakiin haddii maala yacniga bato waxaa naga baxaya maskaxdii normal waxay nooga noqonaysaa waxyaabaha maala yacniga normal noo noqonayo taasna waa iga advice aniga nafteyda mar walba aan isxasuusiyo oo aan ka shaqaynayo waa I'm not perfect on that yet so tan kaleeto ugu dambeysa waxaa waaye qofka badanaa oo dadka gooshooda ka istaajiso mise ayna dadka gooshooda guul ka gaarin waxaa waaye in qofka ay dhib ku tahay mise ayna fahansaneen marka ay waxyaabo cusub noloshiisa kusoo zaa'idaan sida oo loo qabsan lahaa taqyiirkaas oo uga soo bixi lahaa si gooshiisa ugu laabto because markaa gool hadda dhiganaysa hadda sanadkan hadda markuu bilaabanayo 3 bilood hadda kabacdi wixii dhacay lama og nobody knows ilaha og anaga caalam qayb ma nihin so waxa laga yaabaa inuu baby ku imaado maama tahay waxa laga yaabaa in qofka shaqadiisa loo isgalay shaqadiisa ka tago blanki adduunyadii experience gan isbedelna based on life experience gan taqallub loo baahay marka waxyaabaha isbedelkaas markay imaado in qofkii oo taqallub la imaado oo ogsan yahay in waxyaabahaas ka fatara laga yaabaa inay ku mashquuliso babygaas ku mashquulsatay 2 bilood 3 bilood kabacdi marka waa inaan gooshaada ku soo laabataa soo celisaa الشاطر وحاول قفكي السوء اللي كره أو جوشي سكوس ولا وكره أو وحي سي وذكر لكن هدي قفكي وحياوي كو إمادان أو life experience كو إمادو وحياوي أكو مش كوشيد أو السوء اللي وحارك السعادة سنوين إذا بحثي هذين مرة ربع بس كده عادي وأقول سزي وحي وحبرشة واسك استعجزي وحكو مش كوشي ما نمذي يقول كي وحياوي أجندة دي كود أنا أسكيل المانتي mise adoo isku wadi karto oo samayn karto isku wadi karto tanka so intaas aan rabay inaa idila sheego 7 ilaa 8 shay aan soo sheegay badan intaas iska ilaali intaas marka iska ilaalis marka waxaa la imaadaa kow in hadafkaadi waadax ku noqdo oo hadafka rabtid og tahay oo personal ku yahay qof kale asaas sameeya u sameyn adiga hadafkaaga gooni adiga soo daraas gareysay og tahay natiijooyinka kuu keenay noloshaada kusoo zaa'idinaya hadafkaas markaa fahamsan tahay raac طريقيسا هانو ku focus gargareynin طريقينا وما استبك بدك sometimes waxa laga yaabaa isku mashquuliyo qofka maxaa sameeyna maxaa laga baahan koo laba saddex wuxuu qofka inuu ogaado waxyaabaha jidka u maraayo oo very u cadahay wax kasta oo daraasay muhiim ma aha qof walba saas ma sameyn karo so ha isku mashquulin waxyaabahaas step by step baby step ku focus ka ahaaba mid labaad waay focus ka ahaada maanta yawmiyan shahriyan weekly maalin walba isbuuc walba waxyaabaha hadafka stepkaas tilaabada markaa joogtid ku focus garay tilaabada markaa gulka keeda tilaabada kale ida iimaanaysa tilaabada kale ku sii qaadaysa tilaabo waa adduunka ma ahan maalinta hada soo kacdo waxa lahayd ilaa habeenkaaga oo kale sug maalinta hada soo kacdid you never know maalinta ilaa habeenkaas ila dhimanaysid ma ogtid so tilaabooyin noloshaada ku shaqaysaa tilaabada markaas joogtid xusnu niyya la imaaw نيداري حسن النية اللي ما إن نيد حسن النية اللي ما تد حسن العمل نية كل جد واحد مدرس حسن العمل حسن النية هذه السكودر حسن العمل بلس حسن النية equals success إن شاء الله equals وحاول نتيجة يقفك كجار وحي سكوب بدل إنسان نتيجة يقول إنك كجرت أهداف هذا إن شاء الله هدف كذا هدف تافه هيو نقدم هدف أو مركز كومي مثلا هدف وحالة في لما كلا سمينا بدو قدام بيسوي هدف كم كومي مثلا مركز في هذه القفات هاي وحياة بدنا هو فرن شيء كل مرة بتنا نقدر وحياة بدنا أسكو فرتد
oo wax adigana aad dareentid hadaa wax badan isku furtid waxaad dareemaysaa inaad meelba ku fiicneen inaad wax ka salgaari karin laakiin haddaa hal meel ku focus garaysid waxay kuu fududaynaya in hal gool ku focus garaysid oo ahdaaf kaleetana small ay ku leeyihiin hal area laakiin hal big hadaf taas hadaa gaartid sanadkan alxamdulilah next year mid kale kuu dhigan of course hadafka markaa dhiganaysidna waxaa la cajala 7 maalin kale kaa loodaa laakiin waxaa la fiiriyaa 7 shay la fiiriyaa marka hadaf la dhiganayo oo hadafka si aad balance u heshid because hal area la marabtid laakiin taas waxay ku helbgaraynaysaa inaad balance samaysid tawaasunka naftaada u samaysid laakiin qof walbaba hadaf uu leeyahay sometimes focus one thing baby step ku focus garay niyo fiican ina ogaaw in ilaahay yaqiin ku lahaa in ilaahay kuu fududaynayo haddaadii adiga niyadaada saafi tahay oona camalkiina la imaatid insha allah intaas waay yaqiinan ogaaw in ilaahay wax noo fududeyna ilaahay wax kastoo noo fududay anaga isla mid garayno ilaahay waxaa abwaabtiisa maftuuxa all the time ilaahay ahdaafteena anaga dhan noo fududeeyo na siiyo quwo iyo maxaa la dhihi jiray iyo qudro aan ku samayno biiznillah wixii khayr ah allaha noo fududay wixii sharan allaha naga xijaabay ilaaha ogsoon wixii noo fiican wixii kaleeto anyhow khayr idina jira I hope in our video wax ka faa'iideen haddii wax ka faa'iiday please let us know ahdaafta aad dhiganaysid isku dayna ahdaaftaada inay sir ku ahaato aadan dadka aad u sheegin because qof walba waxaa fiican ahdaaftiisa inay sir u ahaato inta awoodid والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقاونا هذا هدف أذيك قبل قفك الهدف كيسا كوجرتا please don't be other people ضد قفك الهدف كيسا هاني قفك الهدف كيسا إنه كويس قريو أذيك الهدف لهاو even if أذيك النفط هذه هدف لهاو نفط هذه هدف لهاو وقاو عمري وعمري محدود كفائدة يسو وقت جاي شباب لماذا هذه عقل جاي بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته